maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelka ayaa maanta xafiiskiisa ku soo bandhigay qorshe ay doonayso dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa inay ku wareejiso faylashii kala duwanaa ee dhulka iyo dukumentiyada dawladda hoose nidaam lagu kaydinayo kombiyuutarka oo software isla markaana la doonayo in lagu wareejiyo dhammaanba xogaha kala duwan ee dhinaca dhulka ee caasimadda Hargeysa. qorshahan oo ay bilowday dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa waxa ka warbixiyay maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteelka. maanta sida arkaysanba waxaanu bilownay fayskii saddexaad ee GIS-ka oo ah in faylashii loo bedelo in muxuu ahaa soft copy iyadoo la samaynayo xadadkii muxuu ahaa degmooyinka oo la samaynayo iyo muxuu ahaa sidii maapkii iyo xadkii iyo wadooyinkii la isugu xidhi lahaa oo noqon lahayd loo diiwaan gelin lahaa wixii ay dadku leeyihiin wixii ah dan guud ah sida iskuulada masaajidada iyo muxuu ahaa warshadaha kale iyo sidii loo samayn lahaa magacyadii sidii iyagu u sameysay sidii loogu qori lahaa muxuu ahaa magacyadii wadooyinka iyadoo daatada imika ay socoto fayskeedii koowaad shanta qaybood ah fayskeeda koowaad waxa weeyaan in faylashii oo dhan laga dhigo soft copy taas oo socon doonta muddo waqtiga insha Allah taala waxaan leeyahay dadweynahana qof kasta oo uu faylkiisa amba kala wareeji ku sameeyay oo aanu dhameystirnay waxaan leeyahay inuu ka dhameystirto inta waqtiga ka hadhay shaqadaas ku socoto bisha gudaheega iyadoo noqon doonto qofku si fiican ugu diiwaan geli doono markay gaadho bisha tobnaadna la samayn doono certificates amba mulkiyado noqon doona inuu qof kastaaba aqalkiisa si rasmi ah mulkiyadiisa u helo. dhanka kale maayirka caasimadda Hargeysa waxa uu ka jawaabay su'aalo kala duwan oo laga weydiiyay dad sheegay in la iibiyo dhul dhawaan laga raray dad ku noolaa dhaamka daame waxa isagoo arrimahaasi ka jawaabay maayirku yiri sidan waxa jira odayaal ka caawinay maayirku dad ganacsatada ku iibinaya dhaankii laga raray dadkii deganaa arintaasi maxay ka jirtaa waxa weeyaan inta wax ka jira ma jiraan laakiin waxa maqlaysan waxay raaheen waa beertayadii halkiisii saddex dhaam bay lahayd saddexda dhaam waa dhaamka quracdheer dhaamka daami iyo dhaamka xeerdigaagta saddexda dhaamba waxa laga dhigayaa suuqyo ay dawladda hoose leedahay waa ogeedeen madaxweynuhu tagay in biyaha laga sii daaya caynka ninka kula dhaamkii biyuhu ku jiri jireen ee caynka ahaa waa beertayadii adduunyada waxa weeye dhulka damiciisa wuxuu galay meel walba dadna waa ninka indhaadayga maraya inuu yiraahdo dhaamka dhexdiisii waa beertayadii ahayd. sidoo kale maayirka caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay ururka lagu magacaabo Sooraadi oo dhawaan sheegay daraasad ay soo bandhigeen inay jiraan baahiyo fara badan oo ka jira dhinaca dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa isla markaana shaqada dawladda hoose ay tahay mid aad u liidata. maayirka oo arrimahaasi ka jawaabaya ayaa yiri sidan waxa qolo qurulada Sooraadi baa daraasad soo bandhigay dawladda hoose ee Hargeysa oo ka sameeyay daraasada waxyaabo badan baa ku jiray oo eeday mowqif adigu wali ma isticmaalay waxa ka soo arinta waxaan u maleynayaa qof kastoo indha qabo way u muuqataa waa Maxamed Cismaan Fadal ninka wada Maxamed Cismaan Fadal waxa weeyaan waa xogeeye arrimaha dibadda xisbiga wadani waxaan filayay in saaxadii siyaasadda doorashadu inay dhamaatay imikana lagu wada shaqeynayo tii caadiga ee Soomaalilandnimada laakiin waxay u eegtay tahay arrinkaasi xagasho dadkii xisbiga ka dhex muuqday kulmiye in la doonayo kolba in qof lagu xigto waxa weeye daraasad marka soo bandhigayso cidii khuseysay baa loo yeedhaa looma yeedhin xubnaha lagu soo casuumay waxay u badnaayeen xubnihii dadkii mucaaradka ahaa marka taa waxaan u arkaa inay daraasadaasi leexatay ayna ka leexatay ururka waxaanu ka xisaabtami doonaa cidii daraasadda bixisay waxa kale oo arkayseen buugaagta daraasadda lagu bixinayay waxay ahaayeen Soomaaliya accountability kiisa ku qornay kamaan filayn Maxamed Cismaan Fadal taas oo kale uu kiisa intuu dhex keeno waliba yiraahdo cid